degdeg warkan ay soo saarayeen dhammaan war-saxaafadeedka iyo majalladuba ay ku sheegayaan Barcelona inay u dhowdahay ciyaaryahankan saxiixiisa inay go'aamiso. Barcelona ciyaaryahanka Rashford waxay u dirtay dalab amaah balaas iiba. ciyaaryahankan already ogolaanshihiisa waa siiyay yesna waa idhaahdey kooxda Barcelona. sidoo kale kooxda Manchester United iyaduna waxba kama qabto dalabkaas oo ay ogoshay inkastoo aanay waxba weli rasmi noqon. hase haatee wada hadalka labada kooxood waa sii horumaray meel fiicanna way wada marayaan. waxaana lagu jiraa marxaladii ugu dambeeyay ama stage-kii ugu dambeeyay ee go'aaminta arrinkan. ciyaaryahanka ee Pedro Fernandes ugunanaanay soo daru wuxuu noqday ciyaaryahanka ugu horeeya uu Flick ka doortay ciyaaryahanada akademiyada. ciyaaryahanka bandhigiisa iyo xirfadiisa weekend ayuu ku soo jiitay dhammaan dadka oo dhan. Flick shaqaalaha farsamada iyo technical even xataa ciyaaryahanadii waa la wada dhacsan yahay oo waa la yaabay ciyaaryahanka sida uu xirfada u yahay. Flicknaad wuxuu doonay ciyaaryahanka inuu u igmado uu horumariyo dhankaas iyo garabka bidix. ciyaaryahanka waa ciyaaryahan kubad sameeya oo number 10 hase haatee waa ka ciyaari karaa sidoo kale garabka bidix. marka Flick wuxuu doonay ciyaaryahanka inuu ka faa'iideysto xirfadiisa oo uu isticmaalo garabka bidix. aanu noqdo ciyaaryahanka ugu horeeya uu ku xusho ciyaaryahanada akademiyada. sidoo kale Flick laba ciyaaryahan oo kale waa xushay ilaa imika oo iyana soo jiitay. waa ciyaaryahanka Chamfer Chile ee garabka bidixa iyo sidoo kale ciyaaryahanka kale ee Joffrey Torrentes isaguna ah baal bidix. saddexda ciyaaryahan ayaa xataa aan Flick uu la dhacsan yahay soo natiijayna. sibxada ciyaaryahanka Ibrahim Diar isaguna uu dhaawacmay oo kooxda ayaa shaacisay hadda ciyaaryahankan inuu dhaawacmay. dhaawiciisaas oo ugu diiday ciyaaryahankani inuu safar galo. saas leejigeedu waxa la filay ciyaaryahankani inaanu habeeraatay u raacin ciyaaryahanada dhankaas iyo Asia u bixi doona. aad ugu xumay ciyaaryahanka ruuxa ciyaaryahan aad iyo aad u xirfad badan. waxaana ahayd inuu halkaas ugu muujiyo laakiinse ma aanay dhicin. waxa ku leenahay get well soon.